meelun oo hotel airport ee magaalada muqdisho ee caasimada dalka ya ku qabsoomay kulanku uu gudoomiyay madaxweynaha dowlad goboleedka koonfur galbeed mudane Abdicasiis Xasan Maxamed Laftagaran ee kulanku madaxweynaha iyo danjiriyalka beela caalamka fadhi Soomaaliya oo ay ka horeeytay ku xigeenka wakiilka xogeyaha guud ee qaramada midoobay ee Soomaaliya Mrs Anita Kikiki Gabebo may qayb ku hayay safiirka dowladda Ingiriiska fadhi Soomaaliya iyo midowga Yurub ee kulanka madaxweynaha uu gudoomiyay ee saaxiibada beela caalamka uu la weelday saacado uu socday mayon ku aransadeena xaaladii dadkii masaakiinta ee ku jeeday deegaanada koonfur galbeed la ku barakay magaalada Laascaanood ee maamulka Somaliland iyo arrimo doorashooyinka iyo sidii la xaqiijin lahay amniga doorashooyinka guud ahaan deegaanada koonfur galbeed ee danjiriyalka beela caalamka mayo cambaareen falalka guracan ee maamulka Somaliland kala kahay shacabkii Soomaaliyeed ee ku jeeday deegaanada koonfur galbeed iyagoo ka tilmaamay arintaas intii aan waafaqsanayn shuruucda caalamiga mid bini'aadanimada iyo diinta islaamka mayo xuseen intii si degdeg ah walan ku wada doonaan dadkaas la musaafiriin gargaar degdeg ah iyo deersii doonaan dhinaca kale saaxiibada beela caalamka iyo madaxweynaha kula hadalay dardargeliyowga geedi socodka doorashooyinka aqalka hoose ee baarlamaanka Soomaaliya oo la kuwada dhawaan intii guud ahaan dalka iyo ku bilaabata mayniyo xuseen intii saaxiibada beela caalamka iyo diyaar leeyin intii iyo si degdeg ah Soomaali doorasho ku qabsanto wal alla walaadinayo iyo biyo doonaan madaxweynaha dowlad goboleedka Soomaaliyeed ee koonfur galbeed mudane Abdicasiis Xasan Maxamed Laftagaran iyo saaxiibada beela caalamka ku mahadnaqay dadaal joogto ee sidii dalka doorashada ogolaan ku dhigay lahayd maynu soo xumaada ka tilmaamay maamulka Somaliland falalka guracan ee iyo kala keen shacabkii Soomaaliyeed madaxweynaha iyo saaxiibada beela caalamka ku warbi safarkii uu ka saaday magaalada caasimada ee Baraawe ee dowlad goboleedka koonfur galbeed iyo waliba hindhindhaynta gobolka qorshay doorashada xubno aqalka hoose ee baarlamaanka Soomaaliya kulanka saas oo kale ku qayb galay agaasimaha guud ee madaxtooyada agaasima ku xigeenka iyo la taliye sare ee arrimo samafalka ee madaxweynaha agaasimaha warfaafinta iyo xiriirka warbaahinta madaxtooyada koonfur galbeed Maxamed Ali Ibrahim Bandhabow iyo kulankaas warbaahinta ku warbi waa maasintiin saakay magaalada madaxda caasimada dalka Soomaaliya ee Muqdisho ayuu madaxweyne Abdicasiis Xasan Maxamed Laftagaran wuxuu kaga qayb galay kulan uu maanta ay la qaatay madaxda ka socotay beesha caalamka ugu horeysay ku-xigeenka wakiilka qaramada midoobay qaabilsan Soomaaliya iyo sidoo kale safiirada UK iyo midowga Yurub madaxweyne Abdicasiis oo ay wehelinayeen la taliyaha madaxweynaha iyo sidoo kale agaasimaha guud ee madaxtooyada koonfur galbeed mudane Cabdullaahi Cali Watiin ayaa waxaa looga hadlay dadkii laga soo musaafuriyay deegaanada Laascaanood iyo sidoo kale amniga doorashooyinka dardargelinta doorashooyinka guud ahaan Soomaaliya sidoo kale madaxweyne Abdicasiis Xasan Maxamed Laftagaran oo ah madaxweynaha koonfur galbeed Soomaaliya ayaa warbixin guud ka siiyay beesha caalamka ee xaaladda guud dadkii laga soo musaafuriyay deegaanada Laascaanood runtii dowlad goboleedka koonfur galbeedna diyaar garow buuxda ee u gashay in dadkii laga soo musaafuriyay deegaanada Laascaanood dib u dejin loogu sameyn lahaa sidoo kalena hadda ku sugan yihiin gaalkacyo guddi uu madaxweyne Abdicasiis u xil saaray sidii loo soo daadguran lahaa ama dib loogu soo celin lahaa deegaanadoodii guddi wasiire ah oo hadda ku sugan gaalkacyo sidoo kale wuxuu madaxweyne Abdicasiis warbixintiisu ku siiyay beesha caalamka ka mid ahayd sidii dowlad goboleedka koonfur galbeed guud ahaanteeda diyaar garow u gashay in dadkii laga soo musaafuriyay deegaanada Laascaanood dib u dejin loogu sameeyo deegaanada koonfur galbeed oo hadda dib u dejin balaaran loogu sameeyay degmada Baydhabo oo ah caasimadda ku-meel gaarka ee koonfur galbeed madaxda guud ahaan xukuumadda koonfur galbeed ayaa diyaar garow buuxda u galay in dadkii sida aan fiicneen oo aan dhaqanka suuban mid diin ahaanba aan ku jirin loola dhaqmay deegaanada Laascaanood runtii la dhihi karo in koonfur galbeed ay diyaar garowdii ay ka gashay maanta dadkeedii ay dib ugu soo laabteen magaalada Baydhabo oo ah caasimadda ku-meel gaarka ah koonfur galbeed dhanka kale beesha caalamka ayaa runtii wax aad loogu xumaado ku tilmaamay in dad Soomaaliyeed laga soo musaafiriyo dhul Soomaaliyeed waxayna maamulka Somaliland ay ku tilmaameen in ay ku dhaqmeen wax ka baxsan shuruucda caalamiga ah iyo sidoo kale shuruucda dhaqameed guud ahaanba sidoo kale waxaa laga hadlay doorashooyinka amniga oo runtii koonfur galbeed sidaad ogtihiin waxaa ka soo dhammaaday doorashadii aqalka sare waxayna hadda diyaar u tahay doorashada aqalka hoose oo runtii baarlamaanka jamhuuriyadda federaalk Soomaaliya oo dhawaan la filayo in guud ahaan Soomaaliya ay ka bilaabato koonfur galbeedna waxay ka dhacaysaa doorashada caasimada Baraawe oo ah koonfur galbeed iyo sidoo kale caasimada ku-meel gaarka ee Baydhabo runtii labada degmo oo doorashada ay ka dhacayso koonfur galbeed waxay diyaar garow ugu gashay in sida u dhaqsiya badan doorashada loogu bilaabo
beesha caalamkana waxay ku dhiirigeliyeen madaxweyne cabdicasiis sida mar walba uu u taagan yahay in guud ahaan soomaaliya doorasho ka dhacdo deegaanadiisana runtii doorasho xor iyo xalaal ay ka dhacdo sida aqalka sareba loogu soo doortay waxayna bogaadinayaan hoosha uu koonfur galbeed uu ku wado madaxweyne cabdicasiis xasan maxamed laftagareen runtiina waxay ku tilmaameen in uu yahay mas-uul u adeegayo bulshadiisa mar walbana uu ka adeegayo dhanka arrimaha bulshada. waa mahadsantihiin wabilaahi towfiiq. assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. madaxweynaha dowlad goboleedka koonfur galbeed mudane cabdicasiis xasan maxamed laftagareen iyo xukuumadda koonfur galbeed iyo dadaalo ka biyahayaan sidii gargaar degdeg ee landeersii lahaa shacabkii soomaaliyeed ee hakujeedii deegaanada koonfur galbeed ee maamulka somalilan ha musaafiri kulankungeeka uu qabsoomay hotel airport ee magaalada muqdisho ee saaxiibada beela caalamka madaxweynaha la weeldhaday muhiimadiis may haytay sidii gargaar degdeg ee landeersii lahay shacabkii hakujeedii deegaanada koonfur galbeed ee laascaanood laha ku barakici ee hadeeri magaalada baydhabo ee xarun goboleedka gobolka baay iyo weliba haan ka sugan magaalada gaalkacyo ee gobolka mudug. faysal maxamed isaaq tv-ga iyo raadiyaha koonfur galbeed magaalada muqdisho.